بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دوادا صافي channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo su'aal laga soo weydiiyay videogaygii u dambeeyay aan tuuray oo aan kaga hadlayay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo sidii ay isu daryeeli lahaayeen. Marka hooyooyin badan su'aasha isoo weydiiyay oo dhahay maxay ahayd okay hooyooyinka waa ka hadashay ragana ka hadal. Marka videogan aan idin soo diyaariyay wuxuu noqon doonaa video aad u gaaban. Intaan videoga guda gelin waxaan idinka codsanayaa inaad videoyada aad maxay ahayd haddaad jeclaysateen aad la share garaysaan inta aad jeceshihiin. Waxaan kaloo idin sheegayaa in aan samaystay Instagram. Inkastoo Instagram-kayga cusub yahay waxaad ku geli kartaan anisa.saafi waa Instagram-kayga. marka Instagram-kana waa igala xiriiri kartaan. Marka videogan waa idin sheego waa gaaban yahay. waxaa la yiri ragana maxaa laga yeelaa. marka aniga kulleeyde waxaan idin sheegay wax sharci ah wax qasabatoona ma aha. waa wax fikrad ah oo fikradeyda ah oo aan isku darsanayno. marka ragga waxaan u maleynayaa haweenka su'aalaha ii soo dhiibay inay ka hadlayaan ragga waaweyn ee aabayaasha ah. laakiin aniga arinta ragga aabayaasha ama raba inaan taabto maxaa yeelay waa arin awoodeena ka baxsan. inaan nin weyn oo ku qabo oo caruur ka dhalay oo maxay ahayto laga yaabo inuu ka weyn yahay inaad hadda aan isku hedeegino oo isku mashquulino sidii ninkaas aan u tarbiyayn lahayn oo aan u train garayn lahayn. waxay ila tahay waa waste of time aniga fikrad ahaan. arinta ragga haddii aan rabno inaan wax ka qabano ma aha inaan nimankeena aan ka soo bilowno. of course waa try garayn kartaa ninkaaga inaad maxayto aad wax isku afgarataan laakiin ha ku talagelin hana filin inaad bedeshid 100%. maxaa yeelay ma bedeli kartid sababtoo ah ninkan hooyo kala soo korisay sida badan ba generation keena aniga ka hadlaayo wadan kale ay ku soo koreen nimanka for example Soomaaliya ku soo koreen nimanka waaweyn badi. marka nin hooyo kala soo korisay oo wadan kale ku soo koray oo adigaba ka weyn oo ma garanaysaa tarbiyadiisa iyo dhaqamadiisa iyo dabeecadiisa asagoo leh aad is hesheen inaad isku mashquulisid ama isku daydid inaad maxay ahayto bedeshid wax sahlan ma aha. haddii ninka aad dabeecadihiisa iyo dhaqanadiisa aad macnihii aadan jeclayna marka horeba ka joog inta aadan dhex gelin. laakiin marka hadda la isguursado la isku milmo maxay intaas oo caruura la dhalo within 5 years 5 sano gudahoodba 5 caruur ama 6 caruurba lagu dhalo arintaas ka daba tag ma leh. arin ayaan idin sheegayaa marka aniga fikrad ahaan wax laga qaban karo oo sahlan. arinta sahlan ee wax laga qaban karo ragga ku saabsan marka waxay tahay haddii aad hooyo tahay wiilka adiga aad dhashay ee guriga ku jooga intuu doonaba hala ekaade kaas isku day inaad tarbiyaysid oo aad wax bartid oo aad wax u sheegtid si bari uu u noqdo nin isku filan reerkiisana ku filan ummadana wixii u baahdo wixii caawimadiisa u baahdo wax tara oo aad macnihii soo si fiican u soo tarbiyaysay inuu noqdo waa inaad ku fakartaa. marka hooyooyinka Soomaalida ama qurbaha joogaan ama wadankiiba ku noolaadaan wiilasha waxba looma diraba. wiilasha waxba lama weydiiyaba. wiilasha mas'uulba lama saaro. wiilasha Soomaalida ee aan guryaha ku haysano meeshay doonaan baa ku noolaadaan waxaa loo tiriid garayaa ukun oo kale ukun. marka adiga oo hooyo ah waxaad mashquul ku tahay ninkaaga iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa. ninkaan faraha ka qaad ninkaan hooyo kala soo korisay adiga maadan dhalin mana aadan soo korin. kan aad dhashay ee guriga ku dhex fadhiyeed korsatay kaas ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay inaad tarbiyaysid oo aad diyaarisid
oo aad nolosha adduunka u diyaarisid oo nolosha qoyska u diyaarisid kaas ay mas'uul ka saaran tahay marka ragga wax ka qabadka arinta ragga ee aan wax ka qabanayno anigu waxay ila tahay aan wiilasheena ka bilaawno oo aan barno say wax u baran lahaayeen u shaqaysan lahaayeen isu anfici lahaayeen reerkooda u xanaanayn lahaayeen xaaskiisa u xanaanayn lahaa xaaskiisa u ixtiraami lahaa xaaskiisa uu wax ula qabsan lahaa caruurtiisa wax u tari lahaa macnihii muhiim uu sii lahaa gurigiisa iyo caruurtiisa iyo noloshiisa iyo shaqadiisa aanu maxay ahayd sida dadka hadda qaarkood ay waqtiga ku lumiyaan waxyaabo aan danta qoyska ku jirin waxyaabaha aad jeceshahay oo dhan waxyaabaha aad ku riyoonaysid oo dhan u tarayn garay wiilkaaga inuu reerkiisa saas ku maamulo hooyooyinka aan la sheekaystay waxayba qabaanba wiilka inuu sanka taago oo naagta maxay ahayd uu ma garanaysaa aanu ka amar qaadan oo ma garanaysaa wax weydiinin oo gafuurka u taago oo showgareeyo familigiisa iyo hooyadiisa iyo inuu showgareeyo inuu naagta ka adag yahay ku hadal celinayo oo ma garanaysaa ku qalafsan yahay uu showgareeyaba saasna dhaqan fiican ma aha hadduu wiilka u roonaado ama u naxariisto ama u dhaqaaleeyo qoyskiisa waa arrin wanaag iyo horumar leh arrin ceeb la ma aha ha ceebsanina ku dadaala wiilashiina yaryar inaad mas'uul saartaan inta ay yaryar yihiin gurigaad ka bilaabaysaan guriga ayaad ka bilaabaysaa oo kun ma aha bar inuu guriga wixii ka halaysan oo dhan kuu fix gareeyo markuu yar yahay baraysaa hadduu miis la xirxirayo haddii kursi la xirxirayo haddii daah la samaynayo qolkiisa ha rinjiyeysto hadhow haddana maxay too guriga intiisa kale kuu rinjiyeyn karaa macnihii wixii farsamo ahoo guriga ah inuu cuntada karin karo inuu wax hufarayn karo inuu dharka dhaqi karo inuu feerayn karo adigana way ku anfacaysaa marka uu yar yahay asagana berri waa anfacaysaa xataa hadduu naag helo uu guursado fiican nafta la isma siin meeqaa maxay ahayto hooyo la-aan caruur noqotay caruurtana soomaalida markay hooyo la-aanta noqoto waaba ognahay waxa ku dhaca waa la kala tuuraa waa la kala qaybsadaa waa la kala qaataa marka haddii wiilkaaga aad u korisid wiil edab leh ixtiraam iyo maxay tahay naxariis ku dhaqaya reerkiisa arrintaas waa tacab fiican faa'iidana u leh qoyska burburada qoyska iyo buuqa badan ee haddana haystana waxay all ku salaysan yihiin nimankaas aad leedihiin aan wax ka qabano hooyooyinka kale iyo environmentka kale lagu soo koriyay oo aynaan waxba ka qaban karin waa waqti lumis waa ku daalaynaa marka kaas ka soo jeedsa kan aad dhashay ku soo jeedso kan hagaaji hana ka xumaanin inuu gabadha uu guursan doono u naxariisto respect gareeyo u shaqeeyo u dadaalo maxaa yeelay dadaalka uu qoyskiisa geliyo qoyskay ka muuqanaysaa wanaagaas qoysku ka muuqanaya wanaagaas communitygu ka muuqanaya marka aniga waxaan tala ahaan aniga dooq ahaan iyo tala ahaan ila tahay haddii nin wax laga qabanayo aan ka bilaawno wiilasheena yaryar ee guryaha noo fadhiya videogan haddaad jeclaysatay ama aad isleedahay waad ka faa'iiday thumbs up subscribe garayna adoo mahadsan haddii aad maxay ahaydo comment qabtid oo arrintaas aad rabtid inaad ka comment garaysidna xagga hoose iigu soo qor anoo isku dayi doono inaan idinka jawaabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh